sheegay inay ka xun yihiin sawirka muranka xoogga la dhaliyay lagu daabacay bogga internetka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ethiopia. qoraalkan oo la soo dhigay isla website-kii sawirkan lagu daabacay ayaa lagu yidhi waxaan fahanay in sawir khaldan oo la aqbali karin oo muujinaya khariiradda Afrika uu si kadisa ku galay bogga internetka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia. isla markaana ku war helay sawirkaasina si degdeg ah ayaan uga bixinay website-ka. kooxda dhinaca ICT-ga ayaa hubinaya ammaanka website-ka. waxaanu si kaliya laaba uga qoomamaynaa jahwareer kasta oo suurtagal tahay inuu sababay iyo isfahan darro ka dhalatay dhacdadani. qoraalkan ayaa muujiyay in dowladda Ethiopia ay sheegayso inay ka xuntay dhacdadaasi, balse maaha mid lagu xusay raalgelin rasmi ah. sidoo kale laguma xusin macluumaadka dheebta ee ku dheehan sawirkan, lagumana soo hadal qaadin khariiradan sawirka ku soo baxay muujinaysa Ethiopia Soomaaliya la isku daray. sawirka khariiradan la soo dhigay barta ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Ethiopia ayaa ahaa kii ugu badnaa ee 24 saacadood ugu dambeeyay ay bulshada Soomaalidu hadal haysay iyagoo siyaabo kala duwan uga falceliyay. dowladda Soomaaliya ayaan weli ka hadal sawirkaasi muujinaya Soomaaliya oo lagu daray dalkaasi Ethiopia. sawirkan ayaa muujinaya khariiradda Soomaaliland oo gooni u go'an iyo khariiradda waddankaasi Soomaaliya oo la raaciyay dalka Ethiopia. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed ayaa hore u soo jeediyay in dalalka Ethiopia iyo Soomaaliya ay yeeshaan hal baasaboor. Ismaan Axmed, Ismaan Saab TV, Hargeysa.